السلام عليكم dhammaan asxaabta ku soo dhawaada kanaalkeena ogaalka badda maanta waxaan idiin hayaa 7 dhacdo oo aad u la yaab badan dolfiinka uu ku badbaadiyay dadkan ayaa waxa soo weeraray xasbadeedka noolaha loo yaqaan oo aad ka halis u ah kaasi oo ugaarsado dadka marka uu joogo badda fadlan waxa ka codsanayaa haddii channelka ku cusub tahay inaad subscribe noo saarto haddana la joogtayna like aad noo dhahdo insha Allah dhacdada koowaad ayaa waxay qabsatay wiil yar oo u dhashay dalka Mareykanka wiilkan dhalinyarada da'diisu waxay 24 sano jir asaga iyo asxaabtiisa oo ku dabaalanaya badda ayaa waxa soo weeraray yaxaas aad weyn wiilkan yar ayaa yaxaas wuxuu kaga yimid xagga dambe kadib dhabarka ayuu ka qaniinay wiilkan oo aad u dhiig baxayo asxaabtiisiina ay meesha ka carareen ayaa waxa soo gaaray dolphins aad u fara badan dolphinskan ayaa waxay weerar ku soo qaadeen yaxaaskii asagoo meesha kaga baxsaday yaxaaskii kadib dolphinkii intaa kuma ekaanin wiilkii yaraa ay dhabarka soo saareen waxayna keeneen shoorka ama xeebta bannaanka alla waxa la dhigi karaa wiilkaas muxuu nasiib lahaa dhacdadan Andres qabsatay ayaa ku faaftay guud ahaanba caalamka 2007 ayadoo dadkoo dhan iyo jaraa'idadoo dhan lagu soo wada qoray TV-yada caalamkana laga soo daayay Andres ayaa mar wax laga weydiiyay sida wax u gaareen wuxuu dhahay wax walba oo igu dhacay waxaan ku hilmaamay sida ay badbaadiyeen dolphinskii dhacdadan labaad ayaa waxay qabsatay nin lagu magacaabo Hart Jones 2003 Hart Jones ayaa wuxuu ahaa nin duuba filimada wildlife makerska ama filimada xayawaanka ku nool badda ninkan ayaa asagoo diving sameeyay badda gunteeda ku quusay ayaa waxa soo weeraray yaxaas aad weyn ninkan oo xaaladdu ku cakiran tahay oo halisna waa in la cuno ayaa waxa u soo gurmaday 4 dolphinski ayaa waxa weerar ku qaadeen yaxaaska ayaa dolphinska asagana aad uga cabsada waxay sameeyaan dolphinska meel giliska loo yaqaan ama qamashaarka ayay ka qaniinaan taas oo soo fududeynaysa dhimashada yaxaaska ayaa isla markiiba meesha isaga baxsaday ninkii oo bad qaba ayaa dolphinski ay dusha soo saareen waxayna keeneen shoorka ama meesha loo yaqaano xeebta bannaanka hore ee badda dhacdadan saddexaad ayaa waxay ka dhacday dalka New Zealand 2004 koox dhalinyaro ah oo loo tababariyay dadka la yiraahdo lifeguards ama dadka badbaadiya dadka dabaalanayo kooxdan ayaa waxay ka koobnaayeen 4 nin iyo qof dumar ah waxa soo weeraray yaxaas noociisa loo yaqaano bull shark libaaxa yaxaaska nooca loo yaqaano bull shark ayaa wuxuu aad u ugaarsadaa dadka isla markiiba dadkan oo xaaladdu ku cakiran tahay oo 4 nin ka mid ah la ataagay ama la qaniinay oo lugta laga goostay ayaa waxa si degdeg ah ku soo gaaray xayawaanka loo yaqaan dolphinka ayaa waxa uu leeyahay echo sounder wax la yiraahdo oo meeshii jabaq ka dhacdaba si degdeg ah uga falceliya dolphinkii ayaa markiiba soo gaaray wuxuuna badbaadiyay kooxdii dhalinyarada ah ee loo tababariyay dabaasha asagoo weerar ku qaaday yaxaaskiina isla markiiba meesha isaga baxsaday sida ay ku badbaadeen kooxdii dhalinyarada ah ee ka koobneed 4 nin iyo qofka dumarka ah oo loo tababariyay swimanka ama dabaasha dhacdadan afraad ayaa waxay ka dhacday dalka Talyaaniga qaasatan South East Italy dhacdadan ayaa waxay qabsatay wiil aad u yar oo lagu magacaabo David ayaa wuxuu soo watay David ayaa doontii shil la gashay kadibna David asoo dabaal garaneyn ayuu badda ku dhacay markiiba wuxuu u quusay gunta hoose ee badda isagoo biyo aad u badan caaway David oo halis ugu jira inuu dhinto ayaa markiiba waxa uu tibi dolphinkii ayaa wiilkii yaraa soo qaaday oo dhabarka soo saaratay oo soo waday ilaa iyo bannaanka badda dhacdadan shanaad ayaa waxay ka dhacday dalka Australia 2002 dhacdadan ayaa waxay qabsatay nin lagu magacaabo Grant Dinkinson ninkan ayaa da'diisu waxay ahayd 36 sano Grant ayaa u kaluumaysi tagay badda kadib Grant ayaa doontii la gadoontay kadibna waxa soo gaaray dhaawac xagga sare ka soo gaaray madaxa isagoo aad u dhiig baxaya ninkan ayaa waxa sirgal ama kooba soo geliyay yaxaasyo aad fara badan kadib dhaawac ayay ka soo gaarsiiyeen lugta xaaladda oo wali ku sii adag ayaa waxa u soo gurmaday group dolphins ah halkaas ayay ka badbaadiyeen ninkii oo sidaa asagoo bad qaba loogu keenay bariga dhacdadan lixaad ayaa waxay ka dhacday badda loo yaqaano Red Sea group of scientists oo badda cilmi baaris ka sameynayay ayaa waxa soo weeraray yaxaasyo isla markiiba waxa nimankii diverska ahaa isku hareeriyay dolphins ayuu ka waardiinayay muddo ku dhow 2 saacadood kadib waxa uu imaaday gurmadkii ayaa caawiyay nimankii oo sidaa ay ku badbaadeen nimankii diverska ahaa dhacdadan toddobaad ayaa waxay qabsatay nin lagu magacaabo Adam Walker
waxa ay ka dhacday dalka New Zealand 2014. Adam Walker oo ah nin kalluumaysato ah ayaa waxa uu badda dhexdeeda ku galay shil kadibna doontii ayaa laga doontay. Adam ayaa halis u galay qabow ka jiray badda isagoo dabaalanayay muddo ku dhow 3 saacadood. Adam ayaa waxa soo weeraray sidoo kale yaxaasiyo. Adam ayaa waxa dhaawac ka soo gaaray yaxaasiyadii. Sidoo kale Adam waxa uu soo gurmaday dolphins ayagoo soo badbaadiyeen. sidoo kale xiriirka ka dhaxeeya bini'aadanka iyo dolphinska badbaadisada noolaha loo yaqaano ayaa intaa ka sii baaxad weyn. Xayawaankan ayaa mar walba waxa uu caawiyaa dadka kalluumaysatada ah asagoo ka saacida ama u tilmaama meesha kalluunka uu ku badan yahay. sidoo kale dadka kalluumaysatada markay shabaagta dhigtaan dolphinka waxa uu sameeyaa kalluunka ayuu soo eriyaa asagoo ku jiheynayo dhanka uu shabaqa yaalo. asxaabta waa ku mahadsantihiin daawashadiina. haddaad nagu cusub tihiin subscribe noo saara channelka, gambalelka furo, like na saara si ay dad fara badan u gaaraan. kusoo dhawaada kanaalka ogaalka badda. kanaalkan ayaa mar walba waxaan idinku soo deyn doonaa waxyaalaha ka dhaca badda taas oo dadka Soomaaliyeed badanaaba ama youtuberska Soomaaliyeed aysan ka hadlin. fadlan channelka ku xirnoo mar walba annagana wixii dadaal dheeraad ah oo idin muujinaynaa insha Allah. aad ayaad ugu mahadsantihiin.